بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي حبيباتي قالياتي دمان وإذا سلام ميل كستو دنيا دافيد وقنوشهين ومركلي ولاشين في لسن كاهي وغير كذا اللي تجعل سوري دواذا ما شاء الله تبارك الرحمن. رمضان كريم جمعة وناكسن. أحبابي قصدينا هور وقلينا هدو إلهي إذن بفور انتان قصة قلن waxaa idinka codsanayaa inaad maaragtay ii sheeg gambaleelka furatiin dad badan oo gaarayna jirto because qisada hadda aan soo tuuray doorkan jimcaha kii ka horeeyay 5,000 xoogaa fiirsatay gabdhihii shirkaray jirna ha shirkarayaan insha Allah taala bidnillah. midda kale waxay tahay adinkoo dhowr 40,000 ah inay 5,000 kaliya fiirsato xoogaa waa laga fiican gambaleelka furta insha Allah. soo qisada markaan saas u soo diro idinkugu soo dhacdo. midda xigta waxay tahay subscribe kiina fiiriyo inuu idinkugu jiro in kale tood gabdho badan ay ugu dheheen nooguma jiro. waxaan kaloo idin sheegaa walaalahayga qaaliga ah leegta badiya leegta waxay saacidaysaa markaa leeg samaysid qeyrka adigana sheer garaysay markaa leeg samaysid dad badan u gaaraya inay arkaan oo sabab u noqonay marka leegta badiya insha Allah taala bidnillah karim waa codsigii walaashin fidsan kaahiye ilaahaydan barakeeyo qisadayna galina insha Allah taala bidnillah kariman. telegram jiro oo qisooyinka aan ku guray qol oo telegram jiro oo axla qisas la dhaho marka kaas waxa sameynaysin waxaan soo dhigayaa qaybta oo text message qoraalka ka qortiin qaybta qoraalka ama waxaan idin soo dhigayaa meesha maaragta video hoostiisa linkiga ku dhufsada insha Allah soo booqda qisooyin fara badan ku jiraan inta dhiman aan ku soo dhameystiraya qisadeena markaan bilaabo insha Allah taala bidnillah kariman. waxay ku bilaabanaysaa sida tan waxay la soo xirtay gabar abaaya ah ma sha Allah hadda Yurubta ku nool. waxay dhahday abaaya filsan waxaan ku noolahay wadanka Syria muddo dhowr sano ah muddo badan aan ku noolahay muddo dhowr 10 sano ah aan ku noolahay. waxay dhahday abaayo waxaan haystay wiil yar oo xanuunsan oo daawo ku socdo ku kalena waxay tiri Afrika uga soo tagay xajigaygu wuxuu ku nool yahay dhahday Yurub. waxay dhahday waxaan ahay gabar soo baratay diintan soo bartay intaan imaan Syria quraan maca tafsiir subhanallah qof dheedheel ma ah quraanka maca tafsiirkiisa soo baratay cilmi qofkaas u agyaala. waxay dhahday haddana waa ka daciifi jiray ما دنينين هذا معناه هو دنينا معناه سيدي الربا ما هني قف أو 100% أما هن قف أو سيدي إلهي وحبري وسمعني سمعني ترى ضعيف جينتي ده قد ضعيف ترى أدي وقد ضعيف صور وذكرها اللي قلنا التليفون السوق علي وقتي قاعدين صولابته مركب واحد هذا أبايو معناها سفي عن وما رقمين إنا أذكرتي فرها بدنيد إيو قرآن أقرسكي إيو cibaadadii macnaha la iga rabay tiyan ka daciifay marka waxay dhahdaa abaaye xanuuna ka bixi waayay xanuun qaliina la igu sameynaya qaliinka xataa sometimes waxa dhacaysay tir caloosheeda dhan wada operation dhahdaa qaliin hadii la igu sameeyo sometimes ma bal iga raadin wax la iga raadinayo subhanallah xaaladaas ana ku sugan dhahday oo wali qafladii ku jiro because quraanka qofka bartay iyo kan kale isku mid ma qofka markuu diinta barto waxa la rabaa inuu ku dhaqmo waxa la rabaa aayada hadhow way ku dacweynaysaa subhanallah is abay waxay dhahday maaragtay saxaaladii ugu jiray oo dhibaatadii imtixaankii igu socday waxay dhahday dagaal ka dhac Syria dagaalka ka dhacay aad ma taqaanaa loogu baaba ay isbitaallo iyo waxba ma lahayn meel la aada ma lahayn ana cunug jiran waan haystaa. waxay tiri haddana uuraan yeeshtay uurka markaa yeeshtay xagee ku dhalay marka waxay dhahday marka dhalitaankayga soo dhawaad ninkayga waa laabtay tir Yurub u laabtay dhalitaan maxaa wataa tir cunugii oo xanuunsanaa iyo anigii xaamile ah iskana xanuunsan oo iska jirooley ah dhalitaankayga markuu soo dhawaad waxay tiri kaalab isbitaal ma leh inta ka bax meesha tagtid buu xiran yahay waxa waaye waa aragtay waa la soconaa waxa laga sheekeynaa ma meesha dib ka dhacay waa baxay dhahday Turkiga aaday dhahday bishii 9aad markii ay dhalatan Turkiga aaday dhahday
markan waxay tiri aan 14 cisho bish sagaalaad ka qabo waa dareemi kartiin hooyo xaamilo ah oo bishii sagaalaad 2 isbuuc ka qabto waxay dhahday waa jabay hal lug afar meel ka jabtay dhahday laa ilaaha illa maxamed rasuul wallaahi thumma wallaahi gabadha markay ila qabsanaysay way ooynaysay anu waaba dareemaba dhibka hoosan ka dareema dhuuxa waxaa ka dareemi kartaa qof xaamile hadda dhawaan dhalmoogta ani waxaan hadda idinkaga soo daahdaahayo qisooyinka sorry baby yara ii joogo marka saas darteed aan kala soo daahdaaha iga raali ahaada marka waxa waaye waa dareemi kartaa hooyo xaamilo ah oo 9 bilood ah ya oo lug ka jabta afar meel ka jabta lugta subxaanallah waxay dhahday dadka joogo qaxootiga dareemi kara dhahday oo Turkiga waxay dhahday isbitaalka ma lagu qaabilaa isbitaalka ilaa aad sharciga ka haysatid waxa lagu siinaa aqoonsi ilaa aqoonsigaas aad ka haysatid oo laga siiyo ma lagu aqoonsanaanayo qaxootinimo oo isbitaalka lagama ogolaanayo markaas kadib baa lagu qaabilaa si kasta emergency u ahaa waxay dhahday markaas waxaan dhibkan weyn markuu ugu dhaca ilaahay subxaanahu wa tacaala boqorka hal mar waxay tiri toobad iyo haleeshii waxaa isiri tir maxaa kaa qaldanayo adoo saan oo wax walba taqaanid maxaa kaa qaldanayo oo cibaadada uga daciifta bartaas maxaa ka bilaabay tir suuratul baqara salaatul leyl iyo waxay tiri iyo quraan horta waa la qaaday tir markiiba waa la soo kabay suuratul baqara iyo salaatul leyl aan bilaabay tir salaatul leyl habeenkii 8 saac habeenimo ilaa 8 saac habeenimo kale afkayga ma kala jiray tir suuratul baqara haddana way taqaanaa fasiraadeedii gabadhi way ku daburaysaa waxay dhahday iyo xalqada laa xawla walaa quwwata illaa billah inta yarto xataa nafisan intaas aan ahay tirsaas ah ninkeyga ordaa hot way midee tiri wixii meesha waa dhalay cunugii haddana qaliin aan ku dhalay dhahday operation haddana caloosha la iga sameeyay tiri waa la soo bixiyay tiri isbitaalka guriga la keenay xaajigu wuxuu ugu yiri ilmahana aan u raadinayaa maaragtay ii sheeg bariis laga sugayay israaqada iga sugaysiin waa baxaaniga inta ma sii joogi kari waxay tiri ilbaabkaal ilaab laa ilaaha illa maxamed rasuulullah ilbaabkaal ilaabay dhahday xataa ma soco karto qof soco karta ma ahan qof ilmo wax samaysan karta ma ahan meel waa caloosha waa ka qalan tahay oo hadda qaliin ku dhashay meel waa lugay waa ka jaban tahay cunug yar oo xanuunsan waa ku xariiraa ku kala umulay kula jirtaa ayada nafteedu waxay rabtaa aaba meesha uma joogo hooyo meel uma joogto ehel qaraabo ma haysato walaalayaal waxaa idinka codsanayaa gabar kasta dariskeeda ogaato gabadha markay aad u sii oysa waxay aheeday markay soo xasuusatay markii ay maaragtay oo ninkeeda ka tagay wiilashani wax kastoo dhaco gabdhaha hala xafido hala ilaaliyo gabdhaha hala xanaaneeyo wallaahi billah waa xanuun aad iyo aad u xanuun badan waaye gabadhaas markay ka sheekeynaysa walaa way ooynaysa subxaanallah waxay dhahday guriga la iskaga kay tagay waxaa la igu leedahay horta waxay tiri xaajiga quraankii tirada badnaa iyo qeyrkii nimcada horta markaan dhex galay mas'uuliyadiisa xoogay waxaad moodaa inuu soo fiicnaanayo biilkana ay soo dirtiri jirin sometimes oo la ii keeni jirin waxay tiri biilka la ii bilaabay oo toos inuu igu wado laakiin tiri maxaan ka faa'iidahay ma bixi kari badar dabka uma saari kari ilmahayga waxba ma samaysan karo qof binu aadnina ilbaabka makaaga soo galaysay tiri reer ankara waxay tiri markaas waa ku cusbay waxay dhahday waa ku rafaaday oohinteeda dhamaatay toog qofba martoog waxay dhahday maxaa xasuustaa tiri filsanay aayadoo ninkeyga $1 oo ii soo diray barkinta laabkeeda igu jirto wallaahi qadnay tiri ani ilmahayga isku dhex qadnay isku dhex urnay isku rafaadnay laa ilaaha illaa maxamed rasuulullah waa garguurtaay tiri waxay dhahday waa rafaaday anoo xaalada ku jiro 3 sano aan xaaladaas ku jiro tiri 3 sano aan xaaladaas ku jiray tiri waxay tiri aan marka dambe waxay dhahday aan filsanay intaan soo baxay dhahday oo ilmahayga aan garguurad wax ku siiyo waxay dhahday geedii la iga furay baash dheerad markii laga furo waaye markay soo kacayso qofka ilaa haduu lugta taagan tahay waxba ma samaysan karabay
waxay tiri biran ku boodi jir waxaa la ii baxshay tiri markaasaan biraha banaanka markaan adeega ku doonana wax walba ku samaysana cuuryaanti tii lagu halheed ma ihiyee tiri naagti mardhow wax yar ka hor lugaheeda joog ku laheed maba ii cuuryaanti ay u dhagtay tiri magaceyga dhanba waa la iga ilaaway cuuryaanti labada cunug laheed gabadha cuuryaanti labada cunug laheed laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ilaahay ka cabsada magaca gabadha qofka dadka xanuunsan iyo dadka maaragtay waxa inshallah iyo dadka waxa magacyada loo bixinayo la iska dhaafo walaalaheeyo wallahi waa uqubo tan ugu xun waa ana hadda waxaan idin soo wada qiso oo iga yaabisay gabar ilmaheediyo xanuun ku dhacay oo xanuunka autism ku dhacay oo hadalka ilmaha ku dhago ku dhacay lagu caayay gabar kale walaasheed ku caysay yaa ayadii ilmaheedi ku dhacay gabartan ilmaheedi fiicnaaday ka waran qisooyin fara badan aan nafsiga laga qaadaa ee magacyada gabadha xanuunsaneeda la dhihi jiray ayadana haddana waa kanaha gabadha curyaanta loo baxshay ayadoo wax yar ka hor luga lahayd waxay dhahay 3 sano silcaas ku jira waxay dhahday ilaahay subxaanahu wa tacaala boqorka ahaa isku dhiibay quraan akhri suurad sidii maba ka joojinay tiri sanadyo waa waday dhahday waxay tiri ninkeyga iima ogolay inuu ikaxeeyo waxay tiri lugtii horta lugtii ay qalashay tiri marka birti laga furo lugtii ay qalashay curyaana noqday tiri marka khalaas qof curyaana oo jirkeeda kala dhiman yahay noqday dhahday markii bahasha la iga furay oo waxay tiri aan wax yar joogay kadib lugtii waa qalashay xididadii yaa qalalay waxba lagama qaban karo gabadhan waa gabar naafay noqotay marka xaajigana waa diiday inuu nakaxeeyo waxay dhahday wiilkeyga yar ee curadka ah oo wadankii joogo horta walaalaheeyo waxaan ugu dheeraanayo videogan ugu dheeraanayo video kale idinkaga soo sameynaa maalinta ku xigtaan idiin soo daynaya insha allahu tacaala biidnillahi karim 2 maalin isku xigtan ka dhigaya amba maalina u dhexaysiinaya insha allah kan had intaana ku ekaysiinaya faa'iidadii iyo gabadha noloshii iyo heerka ay gaari doonto iyo wixii oo dhan waa noo dambeynaya insha allahu tacaala biidnillahi karim ay guush ay gaarto markay ilaahay usoo laabatay insha allah axbaabi intaana kan ku ekaysiinaya hadduu ilaahay idmo waayo waa u dheeraaday aada u dheeraaday